ma ogtahay mortgage note-kaada in la iibin karo adigo aan bixin first payment aan bixinin dadka badana way surprise waxay ku tahay dadka markay iibsadeen gurigooda in mortgage-kooda la sii iibin karo ama la transfer gareyn karo markay close gareeyaan guriga waxay ku fikirayaan dadka qaar maxaan u haystay in aan halkan bangiga la joogayo forever maxaa new payment-igan qof kale u siinayaa waxan ma normal ba ma wax baa iga qaldan وسؤالها بدنا ردك يسويديان وحاسة ما تكون شرح تونا step by step قرأ إذا تاي لكن in the meantime فضلا وحنا نوصل مثلا نسوف لو قرأ channel كم حرنا بقول كنا جالسينه صنعت كنتوا نبانكور أصحاب هذا الشيء قرأ سب قرأ so ها 100% normal وحياله شو عادي واي وحيكون أعضاء أنت سو مليون وقف وقري إسكال يكون أعضاء سنة طلبه so long هذا واحد إسكال بدل يا مالها العقد اللي جولها still جولها نيا rate كا times كا الجول فتنا exactly the same يا حاني واحد إسكال بدل يا مالها so this is how the way the system galore design قرأ واي لكن let me break down أكو شرحه so ninka lender ka oo ama bangiga guri ku iibsatay waa just like a house flipper way waa qof house flip gareeyo kale hadii maanta adiga house flipper ku sameynayso maxaa sameynaysaa gurigi way iibsanaysaa waa fix gareynaysaa later qof kale ka sii iibinaysaa lender ka sidaas oo kale sameeyaa ilaa wuxuu ku sameeyaa loan kaada guriga kuma sameynayo waxay sameynayaan loan ku approve gareynayaan waa close gareynaysaa loan ki then kadib loan kaada waxay ka sii iibinayaan qof kale big investor ah so this is the system soo u shaqeynaa behind the scenes waxyaalaha adiga arkeenin like su'aasha isweydiinaysa waxay tahay maxay u sameynayaan arrintan so most lender bangiyada waxay sameeyeen inay haystaan mar rabaan mortgage-kaada 30 years inay haystaan mar rabaan sababta taas waxay ka xayiraysaa lacagta ka xayiraysaa inay hadana iibsadaan bay rabaan hadana dib u sii gadaan so taa ma sameyn kara hadii loan-kii 400,000 500,000 laga haysto ka xayiran tahay so dan guriga markaa gabagabaysan basically waxay ka iibinayaan kambaniyada waaweyn ay kamid yihiin Fannie Mae Freddie Mac, Wells Fargo, Chase, PennyMac, Mascober, US Bank. Bangiyadan iyo bangiyada waaweyn oo dhan bay ka iibinayaan dib ugu sii iibinayaan. So kamaniyadan waxay invest garayaan millions and millions ee mortgage invest garayaan. Waxa kaloo isbedeli kara oo isbedel ku iman kara wax loo yaqaan loan servicer oo qofka loan service ku sameeynaya meaning waxa tahay one company waxay iibsanayaan loan-kaada and then waxay u asaan garayaan qof kale inuu u noqdo loan servicer oo lacagta bish u qaato property tax-iga waxa yaalaashan loo yaqaan the back end-iga u qaabilsan. So waa sidii adigoo hayranayo qof property oo iskala waay la hayranayo qof loo yaqaan property manager oo kirada ku aruurinay basically waa qof fraudis ku fadhiyo kirada ku qaadayo kale step 3 wax loan-kaada iska bedelayo haba yaraatay malaha dadka qaar waxay loan-kooda wax iska bedelay maaha waa sidoo kale haduu maanta qof guri iibsado kala waayo oo uu liiskiisa sidii u haysto waa adiga maanta guri iibsaday qof baa ka kireysay kiradii mortgage-kaada ay ka bixinayaan exact ka bixinaysaa waxa isbedelay malaha waa the same thing with the mortgage-kaada kala waay kamanigaada waxa la wareegaya kamari cusub gurigaada la wareegayo wuxuu ku siinayaa new payment portal ku siinaya account ka bixinayso new customer service contact ku siinaya wuxuu ku siinayaa new mailing ama wax loo yaqaan payment instruction ku siinaya laakiin waxyaalayaashan isma bedelayaan waxyaalaha waxa kamid ah isbedelaynin isbedelan ku imaaneen interest rate-kaada monthly payment-ka bixin isma bedelayso loan times-kaada isma bedelayso haduu 30 years ah haduu 40 years ah iyo pay off date-ka hadii guriga waqtiga ku dhameynayso haduu 2055 aha ama 2080 waqti waxa ay ku xiran tahay usually waa 30 years hadda 2024 iibsatay wuxuu noqonayaa 2054 oo kale waxaas oo isma bedelayaan and those ones exactly sidoo ay ahaanayaan legally sharci ahaan looma ogol inay sameeyaan so that's why mortgage-kaada hadaad aragtay in company kale la wareegay that's the reason u dhacaysa laakiin hadar aad guri lahayn waxaan kugu soo dhaweynaynaa inaan noo soo booqato website-kayga sahanrealtor.com hadii aad rabto inaad u diyaar garowdo 2026 inaad guri iibsato si qalada u sameeyay fara badan si adigoo stress free guri ku iibsato numberkayga shashada ka heli doonta halkan ku qoran yihiin halkan uga soo qabo kadib waxaan ku sameeynaa wax loo yaqaan buy consultation calendar ku soo direynaa calendarkaasi wuxuu ku ogolaanayaa inaad ka book garaysato consultation-kayna si aan u kulano face to face aan kugu sharxnaa process-ka from A to Z sida u shaqeeyaan in the meantime hadda rabto mortgage-kaada inaad ku bixiso 5 to 7 years waxaan ku haynaa wax loo yaqaan fast mortgage freedom oo ku ogolaanaya adiga qoyskiina ku bixisaan gurigiina 5 to 7 years noo soo boqo fastermortgagefreedom.com so webinar-ka ugu cusub aan qaban doono mar dhow insha Allah halkan ugu soo biir fadlan soo follow garee inta ay ka tagay. Assalamu alaykum.